madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu tababar u soo xidhay dufcadii koobaad ee Layli Sargaal oo gudaha Somaliland wax ku barta waxaana ku jira saraakiishan gabdho tababarka ciidanka ama saraakiilnimada qaatay sida uu warka noogu soo diray Maxamed Cumar Daariq. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tababar u soo xidhay dufcadii koobaad ee Layli Sargaal kuwaasi oo dalka gudihiisa wax ku bartay waxaana dufcadani saraakiisha ah ee gudaha dalka wax ku bartay markii ugu horeysay ka mid noqonaya wiilal iyo gabdho ka mid ah dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran ku soo baxay kuwaasi oo muddo sanada tababar ku qaadanayay dugsiga tababarka ee Dararweyne waxaana munaasabad ballaadhan oo lagu soo xidhayay tababarkaasi muddada dheer u socday kala soo qayb galay madaxweynaha Somaliland taliyayaasha kala duwan ee ciidamada militariga booliska asluubta ciidanka badda saraakiil iyo waliba saraakiil xigeenno aqoon-yahano duuliye Axmed Dheere oo ahaa duuliyihii la goosay diyaaradii loogu talagalay inay duqeyso 30 sano ka hor Hargeysa kaasi oo lagu soo sharfay ka soo qaybgalka xafladani ay ku qalin jabinayeen boqolaalka sarkaal waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Somaliland kuwaasi oo hambalyo iyo bogaadin u diray saraakiisha soo baxday kuna soo dhaweeyay ka mid noqoshada ciidamada kala duwan ee Somaliland waxaan yar jecelahay inaan tilmaanid siiyo Layli saraakiisha baxaysa inta kale igama baahnaan qaba waxaan u sheego way iga weerartay waxaan leeyahay waxa tagi doontiin ciidan soo bartay waxa lagu baray oo ah tababar aad ku qaadatay kulliyadan adiga oo qaadanaya ka soo qaad weerar waa qaab ka mid ah qaababka dagaalka ee guusha lagu gaadho nin soo qaatay inuu qaab dagaal yahay oo guul lagu gaadho oo baragtika caadiya oo rura ku soo galaad tagi doonta oo soo maray ninka aad u tagi doonto ee ugu tagaysa goobta waxa la rabaa inaad hogaamiso waxa dheer tahay cilmi qoran in la baray hogaaminta dagaalka oo sida dagaalka loo hogaamiyo la baray waxa kaloo la baray sidoo sarkaalku xaaladda u qiimeeyo xaaladaha kala gedisan la kulmi doona waxay barteen oo kale sida uu sarkaalku go'aanka u gaadho marka waxa soo dhammi la kulmaan waxa kale ay barteen tabta dagaalka waxa kale ay barteen sida go'aanka loo qaato ayay barteen maadaama ay cilmiga ku hubaysan yihiin oo ay shaqooyinka noocaas kala gedisan barteen waxaan filayaa inay ciidamada qaranka ee kala gedisan oo reformka anagu boolisaanimka runtii reform baan wadnaa waxaan filayaa qolada labaad ee ugu ciidanka badan aan hay'adda maanta ka qalin jabinaysa konton sarkaal ayay hay'ad dhowr iyo 40 sarkaal ay yihiin baan filayaa 40 meelaha waxaan filayaa reformka inay ka qayb qaadan doonaan qayb aad iyo aad u weyn isbedel weyn inay sameyn doonaan oo nagala qayb qaadan doonaan si cilmiyeysan oo aqoonaysan oo hawl karaysan waanu tijaabinay dufcaddan ku tijaabinay waana ma gashay inay aan wax baro oo gacanteena wax ku soo saari karno mid hirka shabeelto oo maanta way naga u taagan waxaan rajaynayaa staff u wadi doono anugu macalina waan ka noqday madax waxna waan ka noqday kulliyada saraakiisha markii aan xabar joognay madaxdii ka mid ahayd waan ka mid ahaa waxa macalina waan ka noqday aniga iyo Axmed Janaka Cuuda Basruurta iyo Janaka Duwalka tababarka waan maray waxa ka dhiman waan garanayna laakiin waxa weeye bilow hore wayada iska bilowta waxa dhiman waa inuu bilow jiraa bilowgii baa inoo haga markay ku imika ka baxdo kulliyada ku dhawaha waafiya 140 Layli saraakiil 140 saraakiil xigeen oo kuwa ay xukumi doonaan iyagu yaa soo galiya sharci shakad wayada ugu tababarka
ugu dambeyntii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo tababarkaasi u soo xidhay dufcadaasi saraakiisha ayaa ugu horeyn u hambalyeeyay waxaanu hadallo guubaaba iyo dardaaran isugu jiray u jeediyay saraakiisha cusub ee maanta loo soo xidhay tababarka waxa kale xusid badan maanta oo iyaduna inoo koowa in ciidankii shaqo qaran xoogiisa maanta halkan boqol ka mid ay ka baxeen oo ah shaqada aan bilowgeedii oo hirgala markaynu intaa kusoo dhaafno xusiduna waxay maanta leedahay halkan maanta waxaa ka baxaya 5 sarkaal waxaa halkan lagu dalacinaya 5 sarkaal oo ciidanka qaran ka mid ah oo soo dhamaystay tababar dibadeed chief of staff iyo wax lamid ah muddadii ay xidhibtu dalacaada gaarayeen 3 sano dhamaatay 5 kaas maanta halkan dalajo ku qaadanaya waxaa qaadan doona dalajo maanta la sii doonaa 14 ka soo baxay Maqale Academy oo Ethiopia soo dhamaystay halkana sanadkii ku jiray oo aan jaamacad gelin secondary ka baxay oo iyaguna maanta tiglayaal noqon doona haddii alla yidhaahdo waxaa iyaguna ka bixi halkan ka mid noqon doona oo maanta darajo ka qaadan doona 130 sarkaal oo shaqo qaran ah oo la xidhiidhaan ku bilaabi doona magaalada Kenya waxaa kaloo maanta halkan iyadana xusad ku mudan gabadh ka mid a ciidanka badda oo 2 digrii wadata qof aliyo qof digrii wataana la xidhiidhu gaaraa gabadhaasi 6 sano ama 5 sano ay ciidanka badda ka tirsan tahay jaamacadda Hargeysa ka baxday intaa waxay ahayd darajo si uu dhacdayba waxay intaa ku dartay waxay ku helaysaa aqoonteeda iyo waayargaa soo qaaday darajooyin haddana waxay dheeraysay waxay ka qayb gashay caalamiya oo Rwanda ah waa gabadhii isu taagtay shirka intaa leeg inay weydiiso boorka gaal maxaa Soomaaliya loo tiraaf waayay taana waa loo tixgeliyay maanta iyaduna waxay qaadanaysaa 3 bilood oo kartamo noqonaysa ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku taxay darajooyin cusub Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa